gabar imaamka masjid oo salaada si wada jira u tujisa rag iyo dumar oo dad badan caalamka ka yaabisay. Allahu Akbar. Allahu Akbar. si aan ugu dagaalno muuqaalkan walaal waxaan ka codsanaynaa inaad like saarto muuqaalkan share gareyso si saaxiibo badan u gaaro sidoo kalena aad ku soo biirto page-kan Cabdikariim Cali Aadan mahadsanid mudan. gabadhan oo muslim ah ayaa waxa ay imaam ka tahay masjid iyadoo markaasi si maalinle ah salaada u tujisa rag iyo dumar ku xiran masjidka ay imaamka ka tahay kuwaasi oo ku qanacsan imaam ahaanshaheeda. sidoo kalena halkaasi ama masjidkaasi waxa ay ka tahay maamulka ugu sareeya oo ay qayb ka tahay. sidoo kalena markaasi ay inta badan ku xirtaan ragga iyo dumarka markaasi masjidkaasi ku xiran. gabadhan oo ah gabar da'yar ah amaba dhalinyaro ah ayaa waxa ay si maalinle ah u soo aadaa uguna soo kalahdaa masjidka ay imaamka ka tahay si ay salaada uga bixiso una tujiso jamaacada masjidka ku xiran ee ragga iyo dumarkaba leh. ragga iyo haweenka ku xiran masjidka ayaa waxa ay sheegeen in ay ka helaan oo ay jecel yihiin in ay salaada ka bixiso gabadhan oo qur-aanka aad u taqaana ayna ku khushuucaan sida ay sheegeen marka ay salaada tujinayso. marka laga tago in gabadhan ay ragga iyo haweenkaba ay si wada jira salaada uga bixiso, waxaa intaasi u dheer dadkana ay kaga yaabisay in xilliga ay salaada ku jirto jamaacadana ay tujinayso in aayadaha qur-aanka ah marka ay aayad waliba akhrinayso in ay fasiraadeeda oo luqadda ingiriiska ah ay ku darayso xilliga ay salaada ku jirto jamaacaduna ay ugu xiran tahay. waxaana arintan ka carooday culimo iyo dad badan oo muslim ah kuwaasi oo ka dhidhiyay in qof haween ah ay rag salaad ka bixiso hortoodana ay istaagto, taasi oo lagu macneeyay in halkii lagu khushuuci lahaa amaba ay khushuuc la imaan lahaayeen dadka tukanaya in ay ku mashquulayaan haweeneydan ku hor sujuudaysa sidoo kalena markaasi salaada ka bixinaysa. dhanka kale marka laga tago in haweeneydan ay ragga iyo sidoo kale dumarka masjidka ku taxan in ay si wada jira salaada uga bixiso oo ay imaam u tahay, waxaa intaasi dheer in masjidka ay imaamka ka tahay in ragga iyo dumarka jamaacada ah ee masjidka ku xiran ay isgarab istaagayaan oo isgarab safanayaan si markaasi salaada ay u galaan, taasi oo ay ku wada istaagaan markaasi amaba ay isdhinac istaagaan ragga iyo dumarka masjidka ku xiran ee jamaacada u ah gabadhan markaasi imaamka ka ah masjidkan ay sida wadajirka ah ugu tukadaan jamaacada iyo sidoo kale imaamka ay u tahay gabadhani. Not the path of those whose portion is wrath or who go astray.